waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dawladdeena Puntland oo runtii juhdi iyo waqti wanaagsan ku bixisay doorashooyinkii inoo qabsoomay aan rajaynayno inay halka ka sii wadaan oo maaragtay doorashooyinkii baarlamaanka iyo madaxweynaha la gaarsiiyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hadeerna waxay ina tustay inay shaqo badan qabteen runtii marka loo eego daahfurnaanta marka loo eego ka qaybgalka marka loo eego waqtiga iyo juhdiga la geliyay marka aad iyo aad buu mahadsan yihiin ma hadda sidoo kale waxa la wadaaga hay'adda doorashooyinka Puntland oo gudiga doorashooyinka ugu horeeyaan aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa xisbiyadii siyaasadda Puntland oo iyaguna actors ka ah barnaamijkan oo maaragtay bulshada u dhaweynayay platformyadii dadku ku tartami lahaayeen keenay iyagana aad iyo aad buu mahadsan yihiin bulshada reer Puntland oo rag iyo hablaba leh dhalinyaro iyo haween iyo waayeelba leh iyagana aad iyo aad buu mahadsan yihiin inta ka bacdi hadaan mahadcelinta uga tago labadii qodob aynu u baahnayn oo midna ahayd in bulshadii la baro waxa ay xaq u leeyihiin iyagu iyo waxa xaq loogu leeyahay ama civic education ka aha qodob muhiim ah weey runtii aynu u baahnayn waxaan rajaynayaa in si volunteer qof walba oo dhalinyaro ah oo reer Puntland oo wax garanaya wax qori kara wax aqrin kara in uu dadkiisa u dhaweeyo isla markaasna qayb ka noqdo barnaamijkan inuu baaho bulshadeeduna runtii hesho aqoontaas hesho sidoo kale waxaan qolyahan wada saaxiibadaya rabaa inaan siiyo hinti ah in ay jaamacadaha gudoomiyaasha jaamacadaha ururada ardada jaamacadaha meelaha waxa way dadka looga dhaweeyo oo maaragtay si volunteer ay ku shaqeyn karaan bulshadooda ugu dhaweyn karaan iyaguna ay ka heli karaan runtii maaragtay way aragnimo iyo inay bulshadooda u shaqeeyeen marka in iyagana lala kaashado loo yeero barnaamijkan lagu tababaro si ay bulshada reer Puntland oo dhan ay u gaarto runtii sidoo kale waxa iyagana aad looga faa'iideysan karaa dadka acdaada ama memberska ka xisbiyada oo iyaguna maaragtay u dhuun daloola barnaamijkan in iyagana lagu tababaro si ay bulshadii ugu gudbiyaan marka waxaan isleeyahay hadii bulshadeena aqoontaas lagu mashquuliyo digitalka lagu mashquuliyo maaragtay waxaan la baro waxaan isleeyahay intii inoo qabsoonto wax ka badan ayaa inoo qabsoomaya maylis fiican waa jari karnaa runtii waxaan dhalinyarada reer Puntland oo rag iyo hablaba leh runtii aan ugu hambalyeynaya waxa weey in ay doorashadii la soo dhaafay ee Puntland ka qabsoontay ay dadkii tartamayna ugu badnaayeen dadkii isdiiwaan geliyay oo codkooda dhiibteen ay ugu badnaayeen laakiin waxaan ka codsanayaa inay ku daraan in ay soo saaraan dad micno leh oo bisil oo raba inay wax bedelaan laakiin aan noqon ama u ekaan maaragtay jiilashii hore ama aan sida tan u diyaarsanayn runtii arintaas ceeb bayna ku tahay aad iyo aad baan looga cabanaya waxyaalaha ugu khatarta badan oo hadda Puntland aadka looga cabanaya waxa kamid ah in maaragtay degmooyinkii ay fariisan la yihiin oo gudoomiyihii mar walba la ridayo waa laga baaqsan karaa runtii hadii shaqo meesha taal waxa isleeyahay hadii shaqo meesha taal oo shaqo gudiyada loo qaybiyo kutulooyin loo qaybiyo oo shaqo rasmi ah la qabto shaqadaas lagu mashquuli lahaa laakiin hadii kale waxa imanaysa in gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii uu lagu mashquulo in la rido mar la soo celiyo mid kale la baalkiyeeyo waxa laga yaabaa waxa lagu leeyahay doorashooyinkaas dhaqaale iyo maaragtay waqti fara badan inuu ku burburo oo wax lagu qaban kari sida darteed waxaan leeyahay dhalinyarada arintaas waxayna ku tahay ceeb waxay u baahan tahay arinta in dib loo eego waxay u baahan tahay maaragtay in laga dhigo waxa kan wax aad ku matalaysid bulshada reer Puntland iyo dhalinyarada adiga ku daba joogta runtii waxaan kale rabaa inaan halkan uga faa'iideysto maadaama doorashooyinku waqti badan iyo dhaqaale badan uu ku baxo in hadeer maadaama golayaashii deegaanka la soo qabtay ama waqti hal la siiyo ama ma taqaanay si kale hal isku sidkee in la yiraahdo doorashooyinkii maaragtay baarlamaaniga aan aadno sida aan jecelahay weeye macnaha waa talageliyo arintaas aad bay muhiim u tahay waxaan kale rabaa in ugu dambeyn ku soo gabagabeeyo mar walba oo dadkeenu ay u dhawaadaan maaragtay xukunka iyo isdoorashada iyo dawladnimada waxa fududaanaysa dadkeenu inay bartaan waxay xaq u leeyihiin iyo wax xaq loogu leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madashan iyo inta fadhida aad iyo aad baan uga cudurdaaranayaa dad badan oo iga wax galsan baa fadhiya wax badan kala socda barnaamijkan laakiin waxaan kamid ahaa dhalinyaradii markii horeba 7 sano ka hor u istaagtay in maaragtay xisbiyada la maal gashado maaragtay dadka la hor yimaado bulshada loo daadajiyo walina anagu xilal kumaanaan helin keliyata waxaan rabnay in bulshada ay gaarto keliyata in isbedel yimaado intaas aana muhiim ah aad